بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan khiyaarta nala socota sirdoonka nidaamka Israa'iiliya kan Mareykanka waxa ay bilaabeen baadi goobka ay ugu jiraan hogaamiyaha ugu sareeya ee wadanka Iran Mujtaba Khamenei kadib markii la waayay goob uu jaan iyo carab dhigay lana ogaaday in dagaalka xooggan oo ciidamada Iiraaniyiinta ay ku jiraan cidda dagaalka abaabulaysa inuu isaga yahay warbixinta gaarka uu qorayo wargeyska The Times ee ka soo baxa wadankaasi Ingiriiska oo arintan la xiriirta ayaan si gaar ah qiyaaray ugu faaqidi doonaa Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo gaaray wadanka Mareykankana muxuu yahay dalabka iyo damaca uu doonayo inuu hordhigo madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump xilli rabitaanka Israa'iiliyiinta shacabka badan ee Mareykanku ay u hayeen hadda meesha ka sii baxayaan wasiirka dagaalka ee nidaamka Israel Katz lagu magacaabana waxa uu ballan qaaday in ay diyaar u yihiin weerarka xarumaha nuclearka iyo waliba tamarta ee wadankaasi Iran waxa uu ku tilmaamay in ay muhiim yihiin in aanay joojin karin arrimahaasi weerar lagu qaaday gobolka Kurdistan ee wadanka Ciraaq iyo waliba dacdooyin kale oo la xiriira arrimaha diblomaasiyadda siyaasadda iyo waliba dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka iyo Iran oo qodobo culus maanta ka soo saartay wada hadalka Trump uu ku dhawaaqay xalay inuu la leeyahay mas'uuliyiinta Iiraaniyiinta ayaan ku faaqidayaa qodobadan khiyaarta ay nala socotay meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada YouTube-ka sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa qaar ka mid ah saaxiibadii ka soo fikir dhibtay barnaamijkeena ugu dambeeyay su'aasha maantana waxa ay noqonaysaa sida muuqata Khamenei waa la baadi goobaya Israel iyo waliba Iran aan idhaahdee Mareykanku sirdoonadooda Mossad iyo CIA-da ayaa doonaya ninkaasi in ay soo helaan haddaba maxay tahay sababta hadda keenaysa Khamenei in dib loo baaro xilli Trump uu horey u amaanay hasaatee dagaalka hagitaankiisa lagu sheegay hadda inuu maamulayo Khamenei suuragal ma tahay in si fudud xogtiisa ay ku helaan magacaada iyo meesha aad joogto ku bilow isla markaana aragtidaada qaybta hoose noogu qor si aan faallada kale ee barnaamijka aan kula wadaagno oo aan daawadayaasha u soo bandhigno halmaamin muuqaalka laag inaad saarto YouTube kana share garayso isla markaana YouTube ka subscribe saarto sidoo kalena aad share garayso muuqaalka khiyaarta nala socotay aad baad u mahadsantiin sidaad la socoteen ba markii talada wadankaasi uu la wareegay Mujtaba Khamenei oo la dilay aabihii 28 Febraayo markii Mareykanka iyo waliba nidaamka Israa'iiliyiintu ay weerar wada jira ku qaadeen gudaha wadanka Iran ilaa iyo markaasi waa uu ka soo muuqan waayay fagaaro kala duwan waxaa sidoo kale loo ilaaliyo xogtiisa in si fudud ay ku gaaraan dowladda Washington iyo nidaamka Israel haddaba maalmihii la soo dhaafay waxa aad u kordhay baadi goobka labada sirdoon waa CIA-da iyo Mossad ee ugu jiraan ninkaasi sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen warbixin uu saaka daabacay wargeyska The Times ee dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in hay'adda sirdoonka Israel ee Mossad iyo tan Mareykanka ee CIA-du ay sare u qaadeen dadaalada lagu raadinayo hogaamiyaha cusub ee wadanka Iran Mujtaba Khamenei kadib markii uu xilka qabtay geeridii aabihii Ali Khamenei kadib sida lagu sheegay warbixinta uu qoray wariye lagu magacaabo Michael Evans Mujtaba Khamenei ayaa muddo bila ah aan ka soo muuqan fagaarayaasha mana isticmaalo telefoon iyo computer toona arrintan ayaa la sheegay in ay si weyn ugu adkaatay in la dabagalo farsamooyinka sirdoon ee casriga kuwaas oo inta badan ku tirsan baa la yiri isgaarsiinta elektrooniga taasina waxay qasabtay dowladda Washington iyo waliba sirdoonka Israel ninkaasi meel oo jaan iyo carab dhigay inay waayeen halka dhinaca kale oo si caadi ah u maamulaya dagaalka iyo waliba xaaladaha siyaasadda iyo go'aan qaadashada kama dambaysta ee wadanka Iran warbixintu waxay intaasi ku dartay in meesha uu ku sugan yahay Mujtaba iyo xaaladiisa caafimaad ay wali yihiin kuwa aan si caadi ah loo ogeyn sidoo kalena waxa ay soo kordhisay baalidii dadaalada sirdoonka ee lagu doonayo ogaashiyaha halka uu ku sugan yahay wargeyska ayaa xusay in maqnaashiyaha joogtada ah iyo taxadirka amni ay ku qaadatay in ay ka dhigaan bartilmaameed aad u adag in la helo
iyadoo Mossad iyo CIA-du ay adeegsanayaan habab kala duwan oo sirdoon oo la doonayo in si degdeg ah loo dhaqan geliyo. waxaana arrintan ay u muuqataa in dowladda Mareykanku ay hadda raadinayso mid ka mid ah hogaamiyaashii dunida ee ugu adkaa in ay xogtiisa helaan. dhinaca kale hogaamiyaha nidaamka Israel Benjamin Netanyahu ayaa gaaray dalka Mareykanka isagoo doonaya inuu la kulmo madaxweynaha wadankaasi Mareykanka ee Donald Trump. haddaba muxuu yahay yoolka iyo damaca ninkaasi uu raadinayo? telefishinka Al Jazeera qaybta afka Carabiga ayaa si weyn u taxliilinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee sheekadaasi. wariyaha telefishinka Al Jazeera ee dhulka Falastiin Najwan Simri ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku guuleystay in uu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump xilli uu wajahayo cadaadis siyaasadeed iyo xiriir si xumaanaya ee kala dhaxeeya maamulka Mareykanka iyo qayb ka mid ah bulshada Israa'iiliyiinta. sida ay sheegtay wariyuhu, Netanyahu waxa uu doonayaa in kulankaasi uu ku xaqiijiyo dhowr qodob oo uu arko inay yihiin qadcas, kuwaas oo ay ka mid yihiin in Iiraan laga saaro uraniumka aadka loo hodmiyay iyo Israel in loo damaanad qaado xorriyadda ay u leedahay inay sii wadato howlgalladeeda militariga Gaza, Lubnaan, Syria iyo sidoo kale Iiraan, taas oo ay doonayso Israel dagaaladaasi inaanay dhamaan, inaan lagu qasbin inay ka baxdo deegaanada ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada Israa'iiliyiintu, taas oo u muuqanaysa nidaamkaasi in uu muddo dheer raadinayay sidii arrintaasi Trump uga iibin lahaa. in laga fogaado baa layidhi dood ku saabsan xaaladda daanta galbeed iyo waliba weerarada ay adeegsanayaan baa layidhi Israel iyo Falastiiniyiinta si halkaasi loogu baqsado, oo waxay doonaysaa Trump inuu siiyo damaanad qaad dhammaystiran in tillaabooyinka ay sameynayaan aan laga hortagin. wasiirka nidaamka Israel u qaabilsan dagaalka ee Israel Katz lagu magacaabana waxa uu soo bandhigay in ay doonayaan in ay weeraraan xarumaha tamarta Iiraan, laakiin Mareykanka ma ogola hadda buu yidhi. taasina waxaa baadi goobaya ra'iisul wasaare Netanyahu oo booqasho ku jooga dalkaasi Mareykanka. wasiirka dagaalka ee nidaamka Israa'iiliyiinta ee Israel Katz ayaa sheegay in dowladdiisu ay si weyn u doonayso inay weerarto xarumaha tamarta Iiraan, balse uu sheegay in Mareykanka uusan ogolayn tallaabadaasi marxaladda hadda jirta marka lagu akhriyo. Katz waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay ku duulaan Israel si ay u fuliyaan weerar ka dhana Iiraan, isagoo sheegay in mas'uuliyiinta Iiraaniyiintu aysan arrintaasi aad uga warqabaan buu yidhi, taa beddelkeedana ay garaacayaan wadamada Khaliijka. wasiirka ayaa intaasi ku daray in ciidamada Israa'iiliyiintu ay burburiyeen qiyaastii 70% marinada Gaza, isla markaana ay sheegeen in ay qaabka howlgallada magaaladaasi u gudbeen baa layidhi koonfurta wadankaasi Lubnaan. dhinaca kale, wasiirkan mayalka adag ee Netanyahu xulufada la ah ee Katz waxa uu qiray in Mareykanka uu leeyahay dano iyo tixgelin gaara oo ku saabsan arrinta Iiraan, kuwaasi oo sheegaya in ay ka duwan yihiin isla markaana ay ka ballaaran yihiin danaha Israa'iiliyiinta, sida uu hadalkan u dhigay markaad si dhammaystiran u eegto doodiisa. weerar lixaad ayaa lagu qaaday gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq, halkaasi oo la sheegay in ay joogaan ciidamada Mareykanka. diyaarada iswada ayaa lagu garaacay gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Erbil iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo ka mid ah Sulaymaaniya. waxaana muuqanaya ciidamada wadanka Ciraaq iyo sidoo kale kuwa isbahaysigu uu Mareykanka hogaaminayo inay si weyn ula tacaalayaan sidii dhibaatooyin aysan u soo gaarsiin lahayn duqeymaha ay sameynayaan diyaaradahaasi. gobolka ismaamulka goonida ah leh ee Kurdida wadanka Ciraaq ee Kurdistan ayaa mar kale wajahay xaalad amni oo aad u kacsan kadib markii meelo kala duwan looga qaaday weerar istaba joog ah oo loo adeegsaday diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn.
weerarada ayaa yimi kadib markii isku dayo lagu beegsaday qunsuliyadda Mareykanka iyo saldhigga isbahaysiga caalamiga ee ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Erbil. sida ay sheegeen mas'uuliyiinta difaaca cirka ayaa ku guuleystay baalayeen inay ka hortagaan weeraradaasi aadka u sii xoogaysanaya. sidoo kale diyaaradahan iswada ayaa lagu weeraray xarumo ay leeyihiin xisbiyada mucaaradka Kurdiyiinta Iran oo ay ka mid yihiin xisbiga dimuqraadiga Kurdistan ee Iran ee KDPI la yiraahdo iyo xisbiga Komala kuwaasi oo ku yaala baalayeen waqooyiga Erbil iyo deegaano ku teedsan gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Al-Khalifa. weerarada ayaa waxa ay sababeen burbur hantiyadeed oo ballaaran hase yeeshee lama soo warin ilaa iyo hadda wax weyn oo khasaare nafeed ah oo lagu sheegay dagaaladaasi in ay sababeen. ilaa iyo hadda ma jiro dhinac rasmi ah oo sheegtay mas'uuliyadda weeraradan. dowladda gooni sutaagga raadinaysa ee Kurdistan ayaa sheegtay in qaar ka mid ah weerarada lagu soo qaaday gudaha wadanka Ciraaq gaar ahaan gobolka la yiraahdo Nainawa